Assalaamu calaykum. Qaybihii koowaad iyo labaad waxaan ku soo qaadanay taariikh nololeedkii Saddam Hussein, soo koritaankiisii saaxadda awoodeed ee dalka Ciraaq, iyo awooddii baaxadda lahayd ee uu ku yeeshay xisbiga hanti-wadaagga Bacaath, iyo weliba beddelkii uu beddelay madaxweyne Al-Bakr ee uu ku noqday madaxweynaha dalka Ciraaq, dib u shaandhayntii uu ku sameeyey maamulkii sare ee xisbiga Bacaath. Haddaba qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa dagaalkii Saddam Hussein uu la galay waddanka Iiraan. Sanadkii 1979 waxaa afgembi hoggaanka Iiraan lagaga xayuubiyey boqorkii Sunniga ahaa ee waddanka Iiraan xukumayey, Boqor Shah Mohammad Reza Pahlavi, waxaana afgembi hubaysan talada dalka Iiraan kula wareegay hoggaamiyihii kacaanka Islaamiga ahaa ee muddada badan dalka Iiraan musaafiris dibaddiisa ugu maqnaa, waana Ayatollah Khomeini iyo weliba wadaadadii Shiicada ahaa ee ku wareegsanaa waxay Iiraan ka yagleeleen jamhuuriyad Islaami ah. Taasina waxay war ku reebtay dalal badan oo Carbeed oo xidhiidh sokeeye la lahaan jiray dalka Iiraan oo Shiico badan ku leh dhulkooda, sida waddanka Ciraaq oo uu Saddam Hussein taxaddar weyn ka muujin jiray inuu ka tirtiro ama aan Ciraaq gudaheeda aanay ku baahin nidaamka Islaamnimada ama nidaam diinta ku xidhan, maadaama dadka Ciraaq boqolkiiba 60 ama badankood ay yihiin dad Shiico ah oo ku hoos noolaa dowlad xukunkeeda sare tahay Sunni. Saddam Hussein waxa uu u arkayay Khomeini iyo nidaamkiisa cusub ee uu ka yagleelay Tehraan inay khatar gelin karto xukunkiisa iyo weliba awooddiisa uu ku lahaa mandaqadaasi. Sidoo kale intii uu Khomeini musaafiriska kaga maqnaa Iiraan gudaheeda, waxa uu talxiil ku joogi jiray waddanka Ciraaq gudihiisa, halkaasi oo intii uu joogay waa sanadii u dhaxaysay 1964 ilaa 1978 Saddam Hussein shaki weyn ka muujiyey Ayatollah Khomeini oo waagaasi Karbala iyo magaalooyin Shiicadu degto Ciraaq gudaheeda ka aasaasay dhaqdhaqaaqyo u janjeera Shiicada Muslimka ah. Sanadii 1978 ayuu Saddam Hussein ka musaafiriyey Ayatollah Khomeini Ciraaq gudaheeda. Haddaba sanad kadib markii Khomeini qabsaday hoggaanka sare ee dalka Iiraan, waxaa bilaabmay shaki weyn iyo weliba nacayb gun weyn oo salka ka soo bilowday, maadaama Saddam Hussein taxaddar weyn aalaaba ka bixin jiray inuu arko nidaam salka ku haya dhaqdhaqaaqyo Islaam ah. Waxauna go'aan ku gaadhay inuu ka takhaluso ama xukunka Ayatollahi aanu ku raagin Tehraan muddo bilo ah kadib markii Ayatollah Khomeini la wareegay hoggaanka dalka Iiraan. Bishii Sebtembar 22 sanadii 1988 ayaa labada dal waa Ciraaq iyo Iiraan waxaa xuduudka kala qaybiya ku dhex maray dagaal qadhaadh oo aan joogsi lahayn, kaasi oo salka ku hayay muran xuduudeed ay ku muransanaayeen biyo-mareenka Shaatul Arab. Dagaalka waxaa bilaabay Saddam Hussein oo taageero militari iyo dhaqaalaba ka helayay midowga Sofiyeed iyo dalka Maraykanka, labadoodaba kuwaasi oo aan doonaynin inay arkaan kacaan Islaami ah oo ka bilowda mandaqada Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka. Waxaa bilowday saasaan dagaal. Maalmihii dagaalka bilowday waxaa labada ciidan ee labada dhinac ay isdhaafsadeen dagaal xooggan oo dhinaca dhulka ah. Ciidamada Ciraaq waxay garaac xagga gantaalaha ah oo aan joogsi lahayn ku ganeen dekedaha waddanka Iiraan iyo dhulka saliidda iyo baansiinka ku qaniga ah ee Iiraan. Waa gobolka Carbeed ee loo yaqaano Khuzestan. Waxaa ciidamada dhulka ee Ciraaq ay heleen guulo badan oo ay ka gaadheen dhinaca dhulka, iyaga oo hore u ruqaansaday xuduudka baaxadda weyn ee labada dal kala qaybiya, balse ciidamada Iiraan waxay abaabuleen inay isbiimeeyaan cutubyada dagaal ee dhulka ee dalka Ciraaq, iyaga oo miinooyin isku soo rakibayay iskuna dhex qarxinayay ama waxa loo yaqaano human wave shield. Taasi waxay khasaaro laxaad leh u geysatay ciidamadii waddanka Ciraaq ee guulaha dhuleed helay, waxaanay ku khasabtay inay dib u soo gurtaan. 2 sano kadib dagaalka labada dal markii uu bilowday ayaa Saddam Hussein waxa uu dejiyey nidaam kale uu ku doonayay in dagaalka labada dal uu joogsado. Iiraan laftigeedu waxay qabatay dareen ah inay faraha la gashay dagaal qadhaadh oo aan maskaxdooda weligood ka bixi doonin, kaasi oo labada dhinacba ay geysteen foolxumooyin dagaal. Intii uu dagaalka labada dal socday, ciidamada Ciraaq waxay u adeegsadeen ciidamada Iiraaniyiinta iyo weliba Kurdiyiinta gacdoonka waday hubka khatarta ah ee kiimikaalka
chemical weapons. Bishii Maaj 16 sanadii 1988 ciidamada Ciraaq oo doonayay inay tirtiraan ama dhulka dhigaan shacabka Kurdiyiinta oo kacdoon sameeyay ayaa waxaa isaga hor yimid kumanaan qof oo mudaharaadayaal ah magaalada Halabja ee ciidamada waddanka Ciraaq. Dabadeed ciidamada Ciraaq waxay u adeegsadeen maadooyin ka samaysan sunta kiimikaalka iyo weliba sunta ka samaysan kuwa neerfaha bini'aadamiga waxyeela chemical and dangerous poisons. waxaana halkaasi ku nafwaayay dad tiradooda lagu qiyaasay 5,000 oo qof oo Kurdiyiin ahaa oo isugu jiray maati, caruur iyo dad aan waxba galabsan. Inkastoo dhimashada dadkaasi la sheego mararka qaarkood in la buunbuuniyey, sidoo kalena la sheego in sunta ay ku dhinteen aan la garan karin meel ay ka timid, iyadoo waqtigaasi dagaal culus u dhexeeyay labada dal ee Iiraan iyo Ciraaq. Xiisadii dagaal ayaa sii fogaatay. Saddam Hussein waxa uu garaacay albaabada dalalka Carbeed isagoo ka raadsanaya taageero dhaqaale iyo weliba diblomaasiyadeed si uu xukunka ugu xuyuubiyo Ayatullahiyada Tehraan. Sidoo kale taliskii Tehraan iyo Ayatullahi Khamenei wuxuu ku adkaystay inuu doonayo inuu diirka ka saaro fikradaha qalafsan ee Saddam Hussein ee ka dhanka ah in kacaanka Islaamka ku fido gudaha dalka Ciraaq. waxaanu Khamenei sanadii 1988 ku gacan sayday xabad joojin uu dalka Faransiisku u soo bandhigay labada dhinac. dabayaaqadii 80-yadii ayaa labada dal waxay joojiyeen dagaalkii 8 sano jirsaday, waxaana lagu qiyaasaa inay ku nafwaayeen dad tiradooda lagu qiyaasay 1.7 milyan oo qof oo labada dhinacba ah. sidoo kale waxaa ku burburay hanti dhan 80 bilyan oo dollar amaah badan oo Saddam Hussein uu ka qaatay dalalka Mareykanka. maamulka Reagan waagaasi waxa uu isbiday Saddam Hussein inuu yahay nin aan la ceejin karin oo ah geesi Carbeed oo tahli kara inuu soo celin karo xuquuq kasta oo dadka Carabta ay sheeganayaan. sidoo kale Saddam kuma ekayn amaahda uu ka qaadanayay dalalka Mareykanka ee waxa uu amaah badan ka soo qaatay wadamo badan oo Carbeed oo saliidda qani ku ahaa sida Kuwait iyo Saudi Arabia. kadib dhammaadkii dagaalkii qadhaadhaa ee Iiraan iyo Ciraaq, Saddam Hussein waxa uu mar kale Carabta ka dalbaday lacag amaah oo kale si uu Ciraaq dib u dhis ugu sameeyo.